kulanti wacan daawadayaal halkan waa Warsan News barteena YouTube-ka waxaanu halkan idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay qodobada xilligan aanu idiin baahineynana waxa ka mid noqonaya maraakiibta dagaalka ee dawladda Turkiga oo markan gaaf wareegaya xeebaha deegaanada Somaliland dawladda Turkigu waxa ay markan dhaqangelinaysaa heshiiskii difaac oo ay kula jirtay dawladda Soomaaliya waxa ay si buuxda u sugayaan amniga maranbiyoodka badda cas iyo sidoo kale xeyndaabka Baabul Mandab halkaasi oo ah marin istiraatiiji isla markaana muhiim u ah waxaan idiin soo gudbin doonaa maraakiibta dagaalka ee Turkiga ee lagu arkay deegaanadaasi noocyadooda iyo sidoo kale hubka halkaasi ee lagu arkay waxyaabaha sidoo kale qaybtan aanu idinku baahin doono waxa ka mid noqon doona beesha Ciise oo markan aqbalay nabadii ay wadeen maamulka Somaliland waxa halkaasi gaaray xubno wasiir ah oo ka tirsan xukuumadda Cabdiraxmaan Cirro waxay aqbaleen heshiisiinta ay dawladdu markaasi wado iyagoo markaasi si cad u sheegay in dawladda ay ka doonayaan in ay markaasi garaab ama ay ka garaabto dhibaatadii halkaasi ka dhacday horaan beesha Ciise iyo beelaha Gudubirsi ayaa ku dagaalamay deegaano ka mid ah dhulka Somaliland balse wafdiga wasiirada ay gaaray deegaanada Damasha iyo Toroboro ayaa la hordhigay in ay markaasi xukuumadda ciidamadeedii ka qayb galay dagaalada ay laayeen dad shacab ah oo beesha Ciise ka soo jeeda odayaashii beesha Ciise ee la kulmay golaha wasiirada ama xubnaha golaha wasiirada Somaliland ee deegaanadaasi gaaray iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo qodobadii la isku afgartay ayaanu soo koobi doonaa inta inuu baahinteenu ku jirno waxaad sidoo kale aad daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir oo subscribe leh boggeena YouTube-ka ee Warsan News muuqaalkan like saar oo la wadaag saaxiibada oo share garay isla mar ahaantaana qaybta comment-iga ama faalada nagula wadaag aragtidaada waa hagaag ugu horeyntii haddii aynu ku bilowno maraakiibta dagaalka ee dawladda Turkiga ayaa lagu arkay iyagoo markaasi gaafmeer ama roondo ka sameynaya xeebaha marinbiyoodka Baabul Mandab iyo badda cas gaar ahaan deegaanada dhaca dhulka Somaliland maraakiibta kale ah TGC Zangatar TGC Gokova iyo sidoo kale TGC Bafra oo uu Turkigu leeyahay oo dhawaanahan xeebaha Turkiga ka soo sharaacday isla markaana maraakiibta difaaca xeebaha ayaa lagu arkay xeebaha deegaanada gacanka cadan ee waqooyiga Soomaaliya maraakiibtan ayaa ah kuwa ciidamada iyo sidoo kale diyaaradaha qaada ee difaaca xeebaha waxaana Turkigu markan la soo warinaya in uu si rasmi ah u dhaqan gelinayo heshiiskii difaac ee kula jiray dawladda federaalka ee Soomaaliya gabagabadii ama dabayaaqadii sanadkeenu ka soo gudubnay 2025 gaar ahaan 26 bishii December waxaa soo baxay war weyn kaasi oo ahaa in dawladda Israa'iil ama maamulka Israa'iil uu aqoonsi rasmi ah siiyay maamulka waqooyiga Soomaaliya ee deegaanada Somaliland wixii xilligaasi ka dambeeyay go'aanka Israa'iil ay dawlad rasmi ah ugu aqoonsatay maamulka Somaliland waxa uu wajahayay cambaareen xoogan dawladda Soomaaliya ayaana waxa ay sameysay dadaaladeedii ugu dambeeyay oo ay markaasi ku xaqiijinayso midnimada jamhuuriyadda Soomaaliya dawladda Turkiga oo kamid ah garabyada xoogan ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay cudud xoogan oo banaanka taalo ku muujinaysa sidii ay markaasi u ilaalin lahayd midnimada iyo wadajirka dhulka iyo sidoo kale jamhuuriyadda Soomaaliya horaan waxaa jiray heshiis iskaashi oo dhanka amniga ah kaasi oo ay kala saxiixdeen xukuumadaha Ankara iyo Muqdisho heshiiskan ayaa dhigaya in dawladda Turkigu ay si buuxda gacan uga geysato xaqiijinta amniga geyiga Soomaaliya faragelintii maamulka Israa'iil uu ku sameeyay dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya kadib Turkigu waxa ay sameeyeen awood muuqata iyagoo sidoo kale dhawaan Muqdisho keenay diyaaradaha F-16 oo ay dawladda Turkigu ka iibsatay dawladda Mareykanka marka loo eego garab istaaga dawladda Turkigu ay u sameynayso Soomaaliya waxa muuqata in Turkigu uu markan yahay cududda koowaad ee xaqiijinaysa ama markaasi garab istaaga u muujinaya dawladda federaalka ee Soomaaliya maraakiibtan lagu arkay xeebaha gacanka cadan ama marinbiyoodka gacanka cadmeed ee deegaanada waqooyiga Soomaaliya ayaa waxa ay muujinayaan fariin adag oo loo dirayo cid walba oo ku gardaroon karta ama markaasi damac uga jiray inay faragelin ku sameyso dhulka Soomaaliya maamulka waqooyiga Soomaaliya ama deegaanada Somaliland ayaa tan iyo burburkii dawladda militariga ee Soomaaliya horaantii 1991 waxa ay si cad u sheegeen inay yihiin dawlad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale balse ilaa iminka ma helin aqoonsi caalami ah marka laga reebo maamulka Israa'iil oo isaguba cambaareen xoogan wajahaya oo sheegay in Somaliland uu aqoonsaday dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale dawladaha Imaaraadka Israa'iil iyo sidoo kale kuwa kale oo aan ilaa iminka mowqifkooda cadeynin ayay Turkigu ka cabsi qabaan inay faragelin ku sameeyaan deegaanada waqooyiga Soomaaliya ama Somaliland
maraakiibtan dagaalka ee lagu arkay xeebaha waqooyiga Soomaaliya ayaa waxa ay markaasi sameynayaan roondo ama gaafmeer xoogan iyagoo mararka qaar diyaaradaha dagaalka ee maraakiibtan ka dulkacaya lagu arkayo hawada deegaanada Somaliland wixii warar ah ka soo kordha maraakiibtan dagaalka Turkiga ee lagu arkay deegaanada Somaliland wararkeena xiga ayaad ku daawan doontaan daawadayaal markana haddii aynu eegno waxa beryahan ama maalmihii aynu kasoo gudubnay jiray colaad beeleed u dhaxaysa beesha Ciise iyo sidoo kale beelaha Gudubursi ee wadadaga deegaanada Somaliland colaado in muddo ah socday kadib mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland oo heer wasiir ah ayaa waxa ay gaareen deegaanada Damasha iyo Tooraboro halkaasi oo ay kula hadleen xubnaha beesha Ciise gaar ahaan odayaasha iyo sidoo kale saraakiisha hogaaminaya ciidamada beesha Ciise ee dagaalka adag la galay ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland iyo ciidamada beelaha Gudubursi odayaasha iyo waxgaradka beesha Ciise ayaa waxay si cad u sheegeen in ay aqbaleen xabad joojinta ay wadaan xubnaha golaha wasiirada ee maamulka Somaliland waxaase ay tabasho xoogan ka muujiyeen in dawladda ay uga baahan yihiin inay ka garaawdo ciidamadii maamulka ka tirsanaa ee ka qayb galay dagaalada mid ka mid ah odayaasha beesha Ciise oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inay doonayaan in dawladdu ay ka garaawdo isla markaana ay raaligelin ka bixiso in ciidamadoodu ay qayb ka noqdeen dagaalka beelaha u dhaxeeyay waxa uu sidoo kale sheegay in dawladda laga doonayo inay ka tacsiyeyso dadkii halkaas lagu xasuuqay isla markaana magtooda laga doonayo maamulka beelaha Ciise iyo Gudubursi ayaa waxa dhex maray colaad aad u xoogan taasi oo ka dhalatay bandhiga buugga xeer Ciise kaasi oo markii hore maamulka Somaliland uu ogolaaday in la soo bandhigo balse markii dambe maamulku dekreeto madaxweyne lagu joojiyay wixii xilligaasi ka dambeeyay waxa bilowday qalalaasyo xoogan kuwaasi oo markii hore ka bilowday dhanka social media ama baraha bulshada kaasi oo markii dambe gaaray gacan ka hadal ama dagaal soke oo u dhaxeeya beelaha Ciise iyo Gudubursi mid ka mid ah nabadoonada oo hadlay waxa uu sheegay in beesha Ciise ay tahay beel degta deegaanada Somaliland maamulka Somaliland uu yahay maamulkooda oo ay hoos tagaan balse waxa uu iska bariyeelay in deegaanada ama sidoo kale dawladda Djibouti iyo sidoo kale dawlad deegaanka Soomaalidu ay qayb ka yihiin dagaaladii ka dhacay halkaasi isla markaana aysan iyagu wax garab ah ka helin maamulada deegaanka Soomaalida iyo dawladda Djibouti warar soo baxay horaan waxa lagu sheegay in beesha Ciise ee degta deegaanada Djibouti iyo sidoo kale dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay gurmadyo xoogan u sameeyeen beesha Ciise ee dagaalka adag kula jirtay beelaha Gudubursi ee deegaanada Somaliland mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland oo heer wasiir ah ayaa waxay gaareen deegaanada Damasha iyo sidoo kale Tooraboro halkaas oo ay ka dhigeen gogol nabadeed iyagoo sidoo kale ku qanciyay beesha Ciise inay aqbalaan xabad joojinta maamulka isla markaana ay u tagi doonaan beelaha Gudubursi kuwaas oo iyaguna markooda la doonayo inay qaataan xabad joojinta maamulka wixii warar ay soo kordhay wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka boggeena Warsan News ee YouTube-ka aad kala socon doontaan daawadayaal haddii aad ka mid yihiin saaxiibada nagu xiran ku soo bir oo subscribe leh barteena YouTube-ka isla markaana muuqaalkan like saar oo share garay la wadaag saaxiibadaasi ay u daawadaan muuqaalada iyo warbixinadii ugu dambeeyay oo aan halkan ku baahino